kusoo dhawaada casharka imtixaanaha waxaynu ku jirnay jabtarkii matrix maanta waxaynu gelinaa qayb ka mid ah oo ah subtraction of matrix example haddaynu ku bixino waa kala jarka matrix marka waxa lagu yiraahdaa find a oo laga jaray matrix b matrix a oo laga jaray matrix b su'aasha labaadna waxa lagu yiraahdaa matrix b oo laga jaray matrix a marka matrix a maxay noola mid tahay matrix a waxay noola mid tahay inta ay noola mid tahay matrix b maxay noola mid tahay inta ay noola mid tahay waxaynu soo sheegnay casharadii hore waxaynu ku soo sheegnay addition of matrix ka waxaynu ku sheegnay qaybta addition of matrix ka laba matrix marka isku darisid maxaad u fiirinaysaa hadda ka soo qaad matrix a marka ku darisid matrix b waxaad u fiirinaysaa orderka inay noqdaan same order sida hadda matrix a inay yeelato kale two of row and waxa way two row two column inay yeelato kale matrix b two row two column yani labada matrix oo isku dari kara waa sidoo kale matrix ka markii la kala jarayo matrix markii la kala jarayo maxaad u fiirinaysaa orderka ayaa u fiirinaysaa haddaynu example kan aan solve gareyno waxaan oranaynaa ka soo qaad solution baan raadinaynaa solution waxaan oranaynaa matrix a maxay noola mid tahay haddaynu kan koowaad soo qaadano kan koowaad oo ah matrix a oo laga jaray b waxa soo baxaya result cusub waxaan u qaadanaynaa c ayaan u qaadanaynaa marka maxaan oranaynaa matrix a ayaan soo qaadanaynaa matrix a ayaan soo qaadanaynaa maxaan oranaynaa matrix a waxay noola mid tahay toddoba lix afar waxaan rabnaa si fudud oo loo fahmi karo inaan u sharaxno matrix b na maxay noola mid tahay marka waxaan sameynayaa eber labo saddex afar waxaan sameynayaa sidaas ayaa sameynaya marka maxaan ka fiirinayaa orderka ayaan ka fiirinayaa orderka waxaan oranayaa kan orderkiis maxaa waaye waa rowga laba row ayay leedahay rowga maxaan ku sheegnay labaan ka jiifa kana intay leedahay column 2 column 3 column 1 maxaa waaye line kan waaye toddoba 1 waaye halkan 1 waaye toddoba 1 column 2 saa waaye kana maxaa waaye muxuu ka kooban yahay row 1 row 2 column 1 column 2 column 3 marka matrix-ka orderkiisa ay qoranaa maxaan dhahaynaa row oo lagu dhuftay column waxaan dhahayaa intee row ayaa haysta halkan 2 row ayaa haysta row times kana maxaa oranayaa 3 kana maxaa sameynayaa sidoo kale ayaan sameynayaa maxaa weeye waa 2 row ayaa markaas horeeya laba row ayuu leeyahay times 3 maxaa weeye marka matrix-ka matrix a iyo matrix b maxaa weeye waa same order waa laba row iyo saddex column marka matrix-ka waa la kala jari karaa hadaynu si socono maxaa sameynayaa equation-kii maxaynu niri haddii labada matrix la kala jaro yani find baa lagu yidhahdaa matrix a oo laga jaray matrix b labada haddii la kala jaro result cusub ayaa soo baxaya waxaynu niri equal baynu niri sooma equal c ayaynu niri haddaynu soo qaadano c maxay noola mid tahay marka maxaynu sameynaynaa sidaan ayaa u qoranaa waxaynu oranaynaa c waxay noola mid tahay matrix a oo laga jaray matrix b marka matrix a maxay la mid tahay matrix a haddaan soo qaato waxay la mid tahay toddoba afar labo no halkan 1 waaye halkaas maxaa waaye halkan waa afar halkan waa 1 labo eber waxaan oranayaa oo laga jaray matrix b maxay la mid tahay halkan ka jar waaye eber labo saddex afar marka maxaa sameynayaa waxaan sameynayaa
elementiska corresponding ayaan marka waa kala jaraya maxaan niri in noqdaan same order matrix A orderka maxaa weeye 2 lagu dhuftay 3 kana maxaa weeye 2 lagu dhuftay 3 waa same order weeye laba matrix A B same order marka maxaan sameeyaa waxaan kala jarayaa elementiska waxaan kala jarayaa elementiska corresponding elementiska ayaan kala jarayaa todoba hadda wanka ayuu ka jarmayaa todoba ayuu ka jarmayaa yani maxaa sababtu maxaa weeye kan muxuu yaalaa row 1 iyo column 1 kana maxaa weeye row 1 iyo column 1 marka maxay yaalaan same position ayay oolaan doyle marka maxaa oranayaa equal ayaan oranayaa maxaa soo qaadanayaa todoba iyo ka jarmaysaa todoba iyo ka jar minus waa minus ka soo qaadanaya waxaan oranayaa 1 ka ay ka jarmaysaa marka halka maxaa weeye waa 1 row 1 column yani saadaan u muujiyo si fudud 1 row and 1 column يعني 1 row 1 column saas weeye saamro weeye marka ee ka jarmaysaa tanna maxaa sameeyaa ka maxaa sameeyaa 6 baa soo qaadanaya 6 ayaa soo qaadanaya yaa ka jaraya ever ayaa ka jaraya because of kan maxay tahay row 1 soma kan muxuu yahay row 1 soma kana maxaa weeye 6 maxay tahay column 2 marka row 1 way ku jiraa kan muxuu yahay column 2 ayuu yaala marka yaa ka jaraya ever ayaa ka jaraya everta halkee oosha waxay oosha everta meesha oosha maxaa weeye waxay oosha column 2 ayuu oosha marka maxaa ka jaraya ever ayaa ka jaraya waxaan oranayaa minus ever marka kan maxaa oranayaa saas ayaa ku soconaya corresponding elements wax weeye waa 2 ayuu 2 weeye marka maxay ka jarmaysaa 4 maxay ka jarmaysaa marka waxaan oranayaa 4 maxaa ka jaraya 2 1 maxaa oranayaa 1 baa soo qaadanaya iyo ka jarmaysaa 3 ay ka jarmaysaa minus ka ayaan soo qaatay 3 ayaan soo qaadanaya 2 maxaa soo qaadanaya 2 soo qaadanaya maxaa oranaya minus ka soo qaadanaya iyo corresponding ku taalo kan ay ku tahay sababtoo ah maxaa waaye meesha la yaalan kan maxaa waaye row 1 halkee yaala column 2 ayuu oolaa laynkaas column 2 ma 1 kan halkee oolaa wuxuu oolaa row 1 kan muxuu oolaa column 2 ayuu oolaa column 2 ayuu oolaa column 2 ayuu oolaa marka uu ka jarmay taas uu jarmay sababtoo sidaas same position ayuu oolaa marka maxaa weeye kan ever maxaa ka jaraya ever maxaa ka jaraya 4 ayaan ka jaraya waxaan ku xirayaa bracket ayaan ku xiray marka todoba halka jar todoba maxaa ka jaraya hal todoba haddaan halka jaro waxaan soo qaadanayaa c maxay la mid tahay sidaan soo qaatay equal wax la mid tahay todoba hal haddaan ka jaro todobadan halka jar waxaa soo baxay 6 ever ka jar oo isla 6 ever hoon kama jirto 4 2 ka jar maxaa soo baxay 2 soo baxaysa hal wax ka jira 3 hal haddaan 3 ka jaro waxaa soo baxay -2 see ku soo baxday adoo 3 deyna lagu leeyahay baa waxa ku siyaadisay hal ku siyaadisay maxaa lagu yeelanayaa 2 ayaa kugu maqan -2 saas ayuu ku soo baxday ama si kale ka fudud markaste 1 -3 hadaa aragtid numberka weyn calaamada wato ayuu qaadanayaa soo baxaya -2 hadda example kale waxa aragtay -1 + 3 calaamada positive ka ayaa numberkeeda ayaa weyn soma waxa soo baxaysa +2 ayaa soo baxaysa ama 2 kaliya ayaa soo baxaysa numberka weyn markaas calaamada ay yaqaanaysa si fudud sida hore aan ku sharxnaa waa apply markii la apply gareeyo marka -2 labo laga jaray hal marka labada weyn ayaa calaamada leh positive ka leh marka waxa noqonaysaa 1 rale ahaa si basic ayaan u sharxaya hadda waxa lagu yahay ever wax ka jira 4 adoo 4 deyna kugu maqanta minus kugu ah biilkaaga minus ku ah wada hoona bixin afartii waa lagu yeelanaya oo minus marka minus ama numberka weyn ba calaamad siinaysa resultiga markaas
result number ku soo baxaya oo ana halka ku sharaxnay marka waxay noqotay inta ay noo soo baxday waxaan helay inta ay marka saas ayuu sameynay c ayaa noo soo baxday waxaan soo qaadanay matrix A marka laga jiro B waxaa noo soo baxday inta ayaa noo soo baxday inta ayaa noo soo baxday result inta noo soo baxay marka maxaynu sameynaa maxaa kale oo raadi lagu yiri B hadii laga jiro A B hadii A laga jiro ayna raadi lagu yiri waxaynu oranaynaa B hadii A laga jiro B hadii laga jiro waxaynu sameynaa waxaan u qaadanaa M soo baxayso marka matrix M maxay la mid tahay waxaanu sameynaa equation ka dhexa ku noqonaa inta aynu soo qaadanaa ama waxa sameynaa B aynu hormarinaa markaas maxaa ka jarta waa la dawo marin karaa A hadii laga jiro B result-ka soo baxay example ahaan halkan A hadii laga jiro B C ayaa soo baxday B hadii laga jiro A result isku mid ma noqonaya M ayaa soo baxay yani wax kala duwan ayaa soo baxay A hadii ka jiro B wax soo baxaya iyo B hadii ay ka jiro labada wax soo baxaya result kala duwan ayaa soo baxaya ka jarta lismo daba marin karo laakiin ku darta wax daba marin kara A hadii ku jiro B result ku soo baxay C B hadii ku jiro A waxa ku soo baxay isla result-kii C ayaa ku soo baxay saa ayaa ka wada laakiin ka jarta lismo daba marin karo marka maxaa oranayaa B minus A B A maxay la mid tahay inta ay la mid tahay A maxay la mid tahay A haddaan qorto ka soo qaad A waan qoranayaa hadda A maxay la mid tahay A waxay la mid tahay 7 6 4 hal 2 eber B maxay la mid tahay B waxay la mid ahayd hal eber 2 yani waxa si fudud oo loo fahmi karo inaan u qoro inta ay la mid tahay marka maxaa sameeynaya M ayaa raadinaya M maxay la mid tahay M waxay la mid ahayd M waxay la mid ahayd M waxay la mid ahayd B oo laga jaray A saynu halka u jeedno marka maxaan oranayaa B ayaan soo qaadanayaa B waxay la mid tahay B ayaan soo qaadanayaa B dan baan soo qaadanayaa maxay noo mid tahay B inta ay noo mid tahay oo waxaan qoranayaa marka waxaan oranayaa hal eber 2 waxaan rabnaa si fudud inaan u sharaxno oo la fahmi karo marka inta ay noo mid tahay waan ka jarayaa maxaan soo qaadanayaa ka jarta ayaan soo qaadanayaa waxaan qoranayaa 7 A ayaan soo qaadanayaa A dan ayaan soo qaadanayaa oranayaa 6 4 hal 2 eber marka maxaa sameynayaa waa kala jarayaa labada matrix markaan kala jarayo maxaa sameynayaa corresponding elements ayaan kala jarayaa sida halkan 7 maxaa ka jarayaa marka hore maxaa ku hormariyaa 1 kan ayaan ku hormariyaa si order ayaan qorayaa maxaa oranayaa 1 kan ayaan qaadanayaa 1 kan ayaan ku hormaray dhankan ayaan ka soo bilaabaya halkan ka bilaabay dhankan ayaa laga bilaabay xisaab marka waxaan oranayaa minus ka soo qaatay yaan ka jarayaa labada maxay isku yihiin labada elements waxay isku yihiin corresponding ayay isku yihiin marka maxaa sameynayaa labada maxay isku yihiin halkay 7 corresponding ay isku yihiin same place ay oolaan kan muxuu oolaa row 1 kan muxuu oolaa column 1 kan muxuu yaalaa row 1 oolaa column 1 ay oolaa marka waa same position waxaan oranayaa maxaa ka jarayaa minus kan ayaan soo qaadanayaa waxaan oranayaa minus 7 eber maxaa sameynayaa ebertan soo qaadanayaa ayada waa godka labaad column labaad maxaa ka jarayaa 6dan oo oosha column-ka labaad row 1 kana muxuu oolaa row 1 waxaan oranayaa minus 6 maxaan sameynayaa 2 soo qaadanayaa 2 ayaan ka jarayaa minus 4 ayaan ka jarayaa minus 4
waxaan sameynayaa 3 baan soo qaadanayaa minus waxaan ka jarayaa 1 ayaan ka jarayaa hal baan soo qaadanayaa waxaan sameynayaa minus 2 4 ayaan soo qaadanayaa yaan ka jarayaa eber ayaan ka jarayaa marka maxaa sameeyay si yar fudud ayaan qoray waxa weeye in la fahmaan doonayaa raalli ahaada si tartiib ayaan u sharaxayaa marka labadan m ba ayaa u qaatay m ayaa soo qaadanayaa sameynaya m waxay la mid tahay soo kala jir intaan soo kala jir waxaan soo baxaya waxaynu 1 haddii 7 laga jiro numberka weyn ayaa minus ka qaadanaya hal wax ka goysa 7 hal ka go waa 6 minus 6 weyn kaga maxaa noo soo baxay minus 6 halkaan hadda yaa weyn eber haddii laga jiro 6 yaa weyn numberka weyn waa kee numberka weyn ayaa calaamad wata maxaa soo baxay minus 6 kii eber waxaan kama go'do waxaan ma siiyayso waxaan oranayaa minus 6 ayaan qoranayaa ayadana kan maxaa soo baxay minus 2 kan maxaa soo baxay minus 1 kan maxaa soo baxay 4 kii maxaa noo mid noqotay inta ay noo noqotay m intaas noo noqotay hadda m intaan haynaa c na inta haynay c na waxaan inta isku result miya isku jawaab ma labadaba marka fiirsi mt iyo nt isku mid maahan mtc isku mid maahan ka wada marka 10 maanta intaas aynu u joogayaa aad baa u mahadsantihiin wada socod wanaagsan salaamu alaykum